صاحب كل بيال كسر وادي سومال بوزيتيف 24 تي في طبعا ayaan tan cilad farsamo darteed ayaan hawada uga maqnayn balse dabcan caawa weli barnaamijkeeni sida toosta aan tabinayni bishan afkoon ayaan ku guda jirnaa dabcan soo dhow saaxiib yaa soo baxay kooxihii naga dabagey soo baxay dabcan saan dadkan uga dabagey waa maasinta brada waxaa soo baxay caawa Senegal iyo waxaa soo baxay Morocco soo baxeen Senegal ciyaartooyda loo fududeeyo sababtoo Cape Verde Cape Verde waxay kooxihii soo baxay noo dulmar 8 koox ayaa 6 koox ayaa soo baxday noo dulmar dabcan haddii aan ku kala sheego kulamada caawa dhacan kaga hadlaa Tunisia waa soo baxday Gabon waa soo baxday Burkina Faso ayaa soo baxay Cameroon ayaa soo baxday dabcan waxaa soo baxay Morocco iyo Senegal caawa ay soo baxeen dabcan kooxihii gurubyada ku dhibtoonaya isla waaba hareenaya haddana soo baxay Nigeria oo dabcan si xasaasi ah ku soo baxday ayaa la reebay maxaa u soo baxay macnaha Nigeria macnaha sanadka ciyaartooyda oo macrifa macnaha oo lagu yaqaan ma aysan wadan sanadkan macyaabaha hoos u dhigay kamid ah Ghana sidoo kale ciyaartooy macnaha ayagana oo professional top player ay kamid ahaayeen ma aysan wadan su'aal ka boodin Nigeria waxay ahayd kooxii performance-ga wanaagsan soo bandhigay sababta ay ku artay Tunisia waxa la isla group ka tagay soo bixin group xariiftan ay ku soo baxday iyo waxa fee baleeyay marka Nigeria caqabadii ku dhacday waa la yaabay waayo dabcan intaas aan gudbinaa inaadan wali si fiican daawana laga yaabaa Senegal nafsadeentay tarqa ay ku soo baxday laakiin Burkina Faso iyo Cameroon kooxaas ka war aad iyo aad way kacsiin waa kooxaha koobka sanadka oo tartamayaasha ugu cadcad waa la isdhigi karaa bas walow Burkina Faso ay ku soo baxday penalty kulanka ugu dambeeyay oo knockout-ka waa la isdhigi karaa kooxaha ugu cadcad waa kubad fiican way soo bandhigaysaa awood fiican Cameroon host waa ayagana gurigooda maadaama martigeliyayaashii ay koobka gurigooda lagu qabto awoodooda banaanka leeyahay waayo dabcan waxaan idinka dabgeynaynaa dhacdo xanuun badan oo aad u xanuun badan oo bahda sportiga xalay ay aad u xanuun badan dhacaynaya ka dhacday garoonka loo ciyaaray ciyaartii Cameroon iyo dabcan Comoros oo dad ayaa is jiray ilaa 8 qof 9 qof 10 qof ayaa la sheegay inay ku dhimatay dabcan ciyaaraha soo socdana waa idinka dabgeyn doonaa dabcan berib Egypt ayaa ciyaari doonta ciyaar adag ay uga hortagi doonta Ivory Coast dabcan Egypt waa loo yaabaa anigu ma filayo Egypt inay soo bixi karto bari aad iyo aad waa kulamada loo cabsanayo kamid tahay ama laakiin wax kasta ka dhici kara kubaddan laga hordhaco ma aysan fiicna laakiin wax kasta laga filan karaa bilowgii koobkan markaan saadaalinayay dabcan qalad weyn oo ku dhacay ayaa jirta oo ahayd in dabcan koobkan looga baaqaa waqooyiga dabcan hadda nin waa ka noqday horta oo dabcan waxaa isleeyahay galbeedka Afrikaantan madow ayaan isleeyahay koobkan way qaadaan Ivory Coast ama Mali ama Gabon ama Burkina Faso afartaas aan isleeyahay hadda way qaadi karaan taas waa Egypt xitaa shaki u gelina bariisu bixitaankeeda si kastaba noqotay aad u mahadsantihiin ciyaaraha loo socodsiin doonaa saaxiib anna carabta la geeyo sanadkan asal sida Morocco kala asal